بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلهي بمهدسك تبارك وتعالى إن كل ميي beydkiisan barakaysan inagu kulmiyey, isagana weydiisanayna allah tabaaraka wa tacaala inuu wixii khayrayna waafajiyo, intaan haysanana ilaahay tabaaraka wa tacaala inuu inoo daa'imiyo, inoona barakeeyo ayaan weydiisanayna allah tabaaraka wa tacaala. kelimada caawa insha allahu tacaala waxaan jeclahay inaan ku qaadanno حديث كمذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث أبي هريرة أحمد الترمذي بصوصاري، وأنا حديث حسنة. النبي صلى الله عليه وسلم وحيري: من يأخذ مني 5 خصال فيعمل بهن أو يعلمهن من يعمل بهن. 5 arrimood yaa iga qaata oo ku dhaqma ku camal fala ama gaarsiiya oo bara cid ku camal fasha. yaa ima inaad adigu ku camal fasho oo aad qaadato dhaqan geliso, yaa ima inaad sii gaarsiiso cid kale ku dhaqanto ku camal fasho. Abu Hurayra oo xadiidka warinaya wuxuu yiri, su'aasha markuu nabigu weydiiyay sallallahu alayhi wasallam saxaabada ayaa waxaan idhi buuri: ana yaa rasuulallah, ana qaadanaya 5 arrimood. wuxuu yiri markaasuu nabigu sallallahu alayhi wasallam gacantayda qabtay, فعدهن فيها. gacantaydii isagoo haya uu 5 arrimood nabigu ii tiriyay buu sallallahu alayhi wasallam, gacantayduu ku tiriyay. marka 5 arrimood oo muhiim ah waa 5 arrimood ee xadiidka ku yimid ayaan caawa insha Allah taala ka hadlaynaa. qodobka koobaad, النبي صلى الله عليه وسلم: اتق المحارم تكن أعبد الناس. وحي إلهي حرمي أو كوديدي أو كاربي إسك إلالي. هذا السيدة يشو وحان نقونيسا الدومة إلهي ميتك أو عبادة في عن كوغو الستة لنك عبادة نقونيسا. وقضبك الريوان وحوت المامية دينتين السيدة دبا إلهي إنو سودتشيي مصلحة إني الدنتين اللو سودتشيي لبا أساس بيكو تاغنته. أساس ككوباد وسمية فعل المعروف وحي وناق السمية. أساس كلباننا وترك المنكر وحي حنا اسك إلالية، يعني وحلو فريو يا وحلا قال ريبيو وحي لقال ريبيي أو تير كلباد أساس كلباد إن اسك إلالي صوت كفوقاتاي وحي تلماميسا إن آتاهي روح الضون نمدي اللي حقيقيي الضون ربع إناتهاي بيت الماميس. رواية كلا وحي لهذا: كن ورعا تكن أعبد الناس. الورع أو الورع هو اتقاء المحارم. هذا الحديث هو اسكو معنى. وأمد النبي قلنا له صلوات ربي والسلام عليه: خير دينكم الورع. دين تمرك اللي سجيه qodobka
laf dhabarta ee ugu khayr badan waa xalaal miirashada waa inuu ruuxu maxaarimta wixii Ilaahay xarimay isaga fogaado iska ilaaliyo taas waxay tilmaamaysaa inuu ruuxaasi ruux diin leeyahay adoon Ilaahay adoonnimadiisii xaqiijiyay inuu yahay sababtu waxa weeye waxaad garan kartaan waxan xaaraanta Ilaahay inoo diiday waxa la inoogu diiday waa imtixaan iyadoo dib inuu ku jiro darteed la inoogu diiday oo hadaad sideedaba aragto wax Ilaahay xarimay waxa loo xarimay baa meesha ku jirta waa wax un dib ku jira waay ama dib adduunyo ama dib aakhira ku jira haddana dhanka kale waa ku imtixaananahay oo waxa lagu fiirinayaa shaygaas laga reebay bal waxaad ka samayso Allah tabaaraka wa ta'ala bini aadamka wuxuu galiyay wax la yiraahdo shahwa damac iyo doonitaan dhanka kale waxa lagu ibtileeyay nin la yiraahdo shaytaan ibliis iyo shaytaan waa lagu ibtileeyay adduunyadiina waa loo qurxiyay زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا الدون كوحي علينا ولينو قرحي الشيطان وقرحنا لو زينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين آدمها إنو اللميبا حق iyo buris uma qaato mana qasbo laakiin waxba u qurxiyaa markuu u qurxiyo jeclaysiiyana uu ku qalqaaliyaa ilaa ay galaan oo khaladkii sameeya markuu u fiirsan naftaadii oo jecel shaygiyo la qurxiyay adigiyo lagu qalqaalinayo oo shaydan dabada ka riixayo intaasi markay ishelaan ruuxa istaaga ee shaygii ka istaaga ee lagu kari waayo ee ka baaqsaday meesha waxa ku jira wixii ka baajiyay ubudiyya adoonnimo iyo iimaan iyo khayr badan iyo diin qalbigiisa ku jirta u diiday waxa khaasatan markay xaaraantu ku soo gacan gasho oo si fudud aad u heli karto oo gaari karto xoolo xaaraanad si fudud u qaadan kartaa zinadii baa fududaan dhiigii baa fududaaday wixii baad si fudud u gali kartaa markaasoo kale waa meelaha lagu kala baxo waa nabigu salawaatu rabbi wa salaam alayhi markuu leeyahay diintiina waxa u khayr badan xalaal miirashada iyo ruux xaaraanta inuu isaga fogaado bimaana waxaad garan kartaa maanta waxaad helaysaa dad aad u cibaado badan oo soom badan oo salaad badan oo i'tikaaf badan oo umrada aan kala goynaynin oo diyaarad si saaran oo soo saaran haddana baabka marka la yimaado xaaraanta iska qasanaya aad bay u badan yihiin sooma aad bay u badan yihiin inaan adadku dad ruux salaad badan oo soom badan oo cibaado badan oo way badanta laakiin inaad aragto ruux xaaraanta iska ilaalinaya iyo shahawaadkiisa kontroolaya khaasatan markay adduunyo iyo maal gasho waa yariya halkaasaad ka garan kartaa marka nabiga sallallahu alayhi wasallam markuu leeyahay ittaqil maharima takun a'bada an-nas wixii ilaahay xarimay ka fogow iska ilaali waxaad noqonaysaa adoomada ilaahay midka ugu cibaado fiican adoonka ugu sitay ugu fiican baad noqonaysaa qodobka koobaad ee nabiga sallallahu alayhi wasallam uu dardaarmay waa kaas akhiru zamaanka marka waqtigan hadda aan joogno waxbuu la siisitaa wuxuu la dheeryahay wuxuu nabigu tilmaamay salawaatu rabbi wa salaam alayhi aadamaha sida iimaaniyaadka iyo diintu u fududaanayso oo aakhira ugu fududaanayso oo adduunyada uu caabudayo u taqdiisinayo akhiru zamaanka wuxuu gaari doonaa nabiga sallallahu alayhi wasallam xaalad oo ruuxu u aabayeelaynin waxa uu cunayo iyo wuxuu qaadanayo iyo wuxuu kasbanayo inuu xalaal yahay inuu xaraan yahay waa xilli marka xilliyadan hadda aan joogno ee dirhamka iyo diinaarka la caabudayo marka khaasatan xilligaas oo kale ruuxii is ilaaliya
oo xalaasha ku gaabsada oo xaaraanta ka gaabsaday shaki ma laha inuu yahay adoon mumayyiz ah oo adoon soocan qodobkaasi waa qodobka koobaad oo nabigu sallallahu alayhi wasallam shanta arimood uu horeysay qodobka labaadi nabigu wuxuu yiri salawaatu rabbi wa salaamu alayhi warda bima qasama Allahu laka takun aghna an-nas wixii ilaahay ku qayb ku siiyay oo ilaahay tabaaraka wa tacaala ku qoondeeyay raali ku noqo ilaahay baa wax qaybiyay adoomadiisa wax u qaybiyay cimrigiibu u qaybiyay xoolihiibu u qaybiyay aqligiibu u qaybiyay caruurtiibu u qaybiyay quruxdiibu u qaybiyay milkigii iyo kursigiibu u qaybiyay allah baa waxan qaybiyay tabaaraka wa tacaala wuxuu qaybiyay rabbi tabaaraka wa tacaala xidli aan koonkan bal dhisin baa waxan oo dhan la qorsheeyo la qoondeeyay wixii kugu soo hagaagi lahaa iyo wixii lagu siin lahaa maalinkaas la xariiqay hadii la xariiqay wixii ilaahay ku siiyo qayb ahaan ku siiyay raali ku noqo ku qanac ha ku yaraado ha ku badnaado inta ilaahay ka siiyay alxamdulillah iimaanso wixii ilaahay ku qoondeeyo ku qorsheeyay hadaad ku qanacdood raali ku noqoto ayadana nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam takun aghna an-nas dadka ruuxa ugu taajirsan baad noqonaysaa ugu qanisan sababtu maxay tahay laana sidoo nabigu sheegay sallallahu alayhi wasallam laysa al-ghina an kathrati al-'arad walakin al-ghina ghina an-nafs xoolo badni iyo hanti badni ma aha qaninimada iyo taajirnimadu inay gacantaadu buuxdo ma aha inay akawnadu ku buuxaan ma aha taajirnimada dhabta ma aha laakiin taajirnimada dhabti waxa weeyaan in qalbigaagu uu taajir yahay inaad qanacsan tahay in ilaahay wuxuu ku sii raali ku tahay inaad iimaankaaga qabto taasa waxay tahay nabiga sallallahu alayhi wasallam qaninimada dhabta wuxuu ku yiri Abu Dharr ya Aba Dharr atura anna kathrata al-mal huwa al-ghina Abu Dharr ma waxaad moodaysay kula tahay xoolo badnidu inay taajirnimo tahay saas ma aha nabiga sallallahu alayhi wasallam inma al-ghina ghina al-qalbi wal-faqra faqru al-qalbi nabiga sallallahu alayhi wasallam taajirnimada dhabta ah waa mid qalbiga faqriga iyo baahida dhabta ana waa mid qalbiga ninki ilaahay qalbigiisa taajirnimo galiyay rasuulku wuxuu sallallahu alayhi wasallam wixii adduunyo wixii aan la siinin waxba kala ma maqna ninki qalbiga faqri laga galiyana adduunyadoo dhan hadii la isugu daro la wada siiyo waxba u tarimayso marka seed ku gaari kartaa waay waxaad ku gaari kartaa wixii ilaahay ku qaybiyay raali ku noqo oo hadaad raali noqonin maxaad samayn kartaa hadaad wixii ilaahay ku qoonteeyay ku qancin maxaad samayn kartaa waxba kama bedeli kartid dad swaasho dad wareerto dad murugto hadii stress kugu dhaco hadaad isku daydo inaad muxuu ahaayay xoog wax ku keento wax ilaahay ku qoray waxaan ahayn ma keeni kartid jug meeshaada joogoy marba haday meeshaadii un aad joogayso adeer ma iska qanacdid yaa ma adeer raali iska noqotid ilaahay wuxuu ku siiyay raali ku noqo tabaaraka wa tacaala waa qodob muhiim wa kin nabigeenu sallallahu alayhi wasallam uu ku tilmaamay liibaanta dhabta inay tahay liibaanta dhabta xadiiska Abdullah ibn Amr ibn Aas fi sahih Muslim والنبي لها صلوات ربي والسلام عليه قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه وحال ليباني روحي صدح الرماد ليس قدره الدنيا خرب الروح حسان ليباني إسلام نمو دين توصن إيمان وقضب كلابات إن كفلا oo aan ka badnayno adduunyada lagu irsaaqay adduunya waxay ugu fiican tahay
وحوغا يرو آدمهنا أدكيا كافتون تبريدي سي باهيديس آخرة دينا أن كان مشغولين إلهي كاسي وأنت النبي أنه بريتشري صلوات ربي وسلام عليه اللهم اجعل رزق آل محمد كفافا إله قويسسك يجي ريرهيغا يري محمد رزقooda waxaad ka dhigtaa wax uun ku filan sababtu maxay tahay wixii ka badani illa man rahima rabbuka waxay u badan tahay wax ka qiimo badan bay ku seejin oo ku qoonsanaysaa wax iyadii ka fiican bay ku qoonsan saas daraadeed in kugu filan aadamahana aad kaga kaaftoonto baryo iyo wajigaaga inaad iibisana aad kaga kaaftoonto iyo baahi inay ku qabato inta in adduunyada laga siiyo qodobka saddexaadna wax weeyaan inta ilaahay ku siiyay in lagu qanciyo oo iimaan ku qabtood raali ku tahay saddexda arimood ruuxii laga helo waa liibaanay buu nabigu sallallahu alayhi wa sallam saas daraadeed qodobka labaadi wax weeye warda bima qasama Allahu laka takun a'bada an-nas wixii ilaahay qayb ku siiyay raali ku noqo waxaan u jeedaa takun aghna an-nas dadka ruuxa ugu qanisan ee ugu taajirsan baad noqonaysaa in xaqiiqadu sidaas waxaad ku garanaysaa dadka maanta markaad u fiiriso waxaad arkaysaa mid aan wax badan haysanin oo iska rafaadsan gacantiisa wax badan ayna ku jirin haddana maca dalika iska dheragsan alxamdulillaah ku haya qalbigiisu degan yahay wareer iyo balaayo aan qabin mid waxaad arkaysaa dhanka kale wixii uun adduunyo iyo xoolo ahaa lagu ibtileeyay haddana maca dalika nasiina male oo deganaansho male oo xasilooni male waa wareersan yahay oo waa gaajaysan yahay oo gacmuhu kala rogaya marka waxaad garan kartaa xaqiiqada nabiga inooga warramay sallallahu alayhi wasallam oo tahay oo ah warqaninimadu gacantaada ay wax ku jiraan ma aha ee qaninimadu waa qalbiga ilaahay qalbigaaga inuu geliyo qaninimo iyo iimaan iyo qanacsanaan waa wax weyn waatii nabigeena salawaatu rabbi wa salaam alayhi rabbigi ku yiri wa wajadaka ailan fa aghna adoo faqiir ah oo waxba haysanin buu alla ku helay nabi maxamed markaasuu ilaahay qani ka dhigay nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam xoolo badan ma haysanin hanti uu qani ku noqdana ma jirin laakiin ilaahay tabaaraka wa taala qalbigiisa wuxuu galiyay yaani wax weeye taajirnimo iyo qaninimo meesha ugu dambeysay wax badan ee adduunka ka lama maqna marka qodobka labaad ee nabigu salawaatu rabbi wa salaamu alayhi uu dardaarmay waa qodobkaas qodobka saddexaad wuxuu rasuulkeenu yiri salawaatu rabbi wa salaamu alayhi ahsin ila jarika takun mu'minan dariskaaga wanaag u samee mu'min baad noqonay dariskaagu yaa afartan guri oo afarta dhinac ka kala xigtay waa dariskaaga waa magaalo dhan afartan guri oo afarta dhinac ka kala xigtay kulli waa dariskaagii waa ihsaan u samee ihsaanka waxa la yiraahdaa bayleen culimadu bimaana badlu an-nada wa kaffu al-adha wixii dibkaaga ka reeb wixii dheef iyo wanaag aad la dheertahayna gaarsi oo wax ka sii darisku waa meelaha ay diinteenu xoog ka saartay saas daraadeed labada qodob ee lagu xijiyay nabigu ku daray sallallahu alayhi wasallam baad ka garan kartaa ahsin ila jarik hay kutusi iimaan xadiidkii fi sahih ku yimid baa tilmaamayo nabigu yiri salawaatu rabbi wa salaamu alayhi wallahi la yu'min ilaahi baan ku dhaartay mar rumaynin ilaahi baan ku dhaartay mar rumaynin marka saxaabadu waxay rasuulullaahi oo kaasi waa mid khasaaray oo hoogay tolo yaa waay ninka saddex goor nabigu saddex dhaarood isdaba dhigay inuu san rumaynin oo iimaan lahayn waa kuma nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu nabigu sallallahu alayhi wasallam wa ruuxa aan dariskiisu aamin ka ahayn sharkiisa
bawaa'iqda nabiga fasiray weydiiyeen saxaabadu bawaa'iqdu maxay tahay rasuul ilaahayo wuxuu nabigu sallallahu alayhi wasallam sharrahu wa sharkis afkaaga iyo adinkaaga hadduu dariskaagu ka badbaadi waayo daliil waxay u tahay iimaankaagu inay wax si ka yihiin laana calaamatul iimaan wax weeyaan in dariskaaga aad ihsaan u samayso kaliya in laga nabadgaliyo kaliya maaha in laga nabadgalana waa qayb inaad ihsaan u samaysana waa qayb ahsin ila jaarika marka laakiin nabigeena sallallahu alayhi wasallam qala u yimaadeen oo yiraahdeen rasuul ilaahayow gabadha hebla la yiraahdo haweenay waa haweenay cibaado badan salaad badan soom badan cibaado badan magaalada way ka magacaabantaa laakiin dariskeeday dhibtaayo carabkeeda iyo afkeeda kama nabadgalo dariskeedu nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam wa ahlu naar buu yiri wa ahlu naar haddana mid kale loo sheegay heblana ma soom badna oo ma salaad badna ma cibaad badna waajibaadkeeda waa gudataa laakiin dariskeeda ayaa ka nabadgala afkeeda iyo adinkeedu dariskeeda ma gaadho nabigu wuxuu yiri salawaatu rabbi wa salaamu alayhi wa ahlu janna rasuulku sallallahu alayhi wasallam marka soonkii faraha badnaa iyo salaadii iyo cibaadaadkii maxaa isku fuuqsaday waxa isku fuuqsaday daris xumadii cibaada yaridiina maxaa kabay cibaada yaridaadana waxa kabaya ihsaanka dariska aad u sameeyso iyo sharkaaga inay ka nabadgalaan meelo fara badan oo laga yaabo inayna dad ku baraarugsanayn buu khayrku ku jiraa nabigeenu salawaatu rabbi wa salaamu alayhi wa kale ma zaala jibriilu yusini bil jar jibriil inuu igala dardaarmayo dariska kamuusan zuulin حتى ظننت أنه سيورثه إلى أن إسئلهذبا طالما وحوده دونا دحلك waxa laga siiyo ya wuxuu soo wada dhaxalka waxbuu ku leeyahay darisku ila an isiraahdo ayuu igala dardaarmayay waa malakul jibriil dariska saas daraadeed baa nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam ahsin ila jarika takun mu'minan علامات إيمانك لوgu garto waa qodobka afaraad nabigu wuxuu yiri salawaatu rabbi wa salaamu alayhi oo dardaarmay wuxuu yiri salawaatu rabbi wa salaamu alayhi dariska markuu ka hadlay ayuu qodobka afraad rasuulku wuxuu ka dhigay salawaatu rabbi wa salaamu alayhi أحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما ضدك الله جعلو واحد نفط هذا الله جعشه مسلم بعد نقونه محل نفط هذا الله جعشه وحي خيره وحي خيره نفط هذا الله جعشه ضدك الله جعلو طبعا وحي نفط هذا الله جعلينا ضدك الله جعلاني حديثك وحو كهليا waa jacaylka qalbiga waa doonitaanka qalbiga khayr ma la jeceshahay naftaada ha dadkana la jecelo maxaad rabtaa waxaad jeceshahay wanaaga waxaad jeceshahay inaad xoolo hesho waxaad jeceshahay inaad carruur hesho waxaad jeceshahay inaad diin hesho waxaad jeceshahay inaad nabadgelyo hesho waxaad jeceshahay wixii wanaag oo dhan baad jeceshahay wixii ku dhibayo dhanna waad nacabta dadka sidaas oo kale ka soo qaad naftaada kale ka soo qaad wixii aan naftaada aadan la jeclayn dadka la jeclaan oo shar iyo dhib ah wixii naftaada aad la jecesho wanaagana la jeclo buu nabigu sallallahu alayhi wasallam waa miisaan ajiib awaa waa miisaan ajiib awaa markaad la jeclaato jacaylkaasi muxuu baabi'inayaa wax la yiraahdo anaaniyada iyo xasadka waa midda khatarta awaa inaad adigu wax isla rabto wax walba isla rabto aniga dadkiina wax khayraba aadan la rabin bal khayrka ilaahay siiyo wad ka xanaaqsan taayba mid baa xoolo kula dheer ciil baad la dhimanaysaa mid baa wax kula dheer waad xanaaqsanta
midaad wax wada bilowdeen oo isagiina tagay adigina meeshii waad ku wareegaysanaysaa waad xanaaqsan tahay war maxaad la xanaaqi maxaad la xanaaqi oo dagaalami Allah tabaaraka wa ta'ala quraanka kariimka waa ka inoogu sheegay dadka wixii ilaahay siiyay isku mashquulinin kana la siiyay iyo kana loo badiyay iyo kana badsaday iyo kana dhargay iyo xagaha aadin lagama jiro dhanka was'alullaha min fadlihi allihi iyaga siiyay weydiiso sooma intaad ayaga ku hanqaltaagi lahayd oo iyaga unaad ku mashquuli lahayd meel kala laga helaayo xagaha aadin xagga rabbi was'alullaha min fadlihi intan ilaahay uu siiyay ka badan baa khasnadihiisa ku jire allah weydiiso inuu ku siiyo marka xaasidnimadu waa cunsur xun waay cunsur aad u xun waay dhaqan xun waay waa dhaqanka rabbi tabaaraka wa ta'ala xumaantiisa uu inoogu sheegay quraanka kariimka xataa lagu daray waxyaalaha ilaahay laga magan galo wa min sharri xaasidin idha hasad ruux hadduu xaasid noqdo oo adoomada wixii ilaahay siiyay inay dhaafto oo jeclaado ama isagaba ha ku soo wareegto ama sideedaba ha waayaan waa cunsur xun oo aad u liito waa dhaqankii ibliis oo ra'su shar'a dambiga lagu lacnaday oo ilaahay naxariistiisa looga fogeeyay oo aafadu ugu dhacday oo adduunyo aakhiraba uu ku khasaaray xasad baa u geeyay markii nabi aadam u sujuud la yiri meeshuu allah amarka siiyay fiirin lahaa iyo cadamadiisa dhanka umuusa kicine wuxuu bilaabay inuu aadam akhriyo markaas wuxuu yiri ma kan dhoobada laga abuuray baan u sujuudayaa ma kan sidoo yaal dhooba laga abuuray anna dabba laga abuuray seen ugu sujuudayaa war ilaahay baa fadligan siiyay ama dhoobaha laga abuuro ama wax kale laga abuuray fadli alla weeye amarka qaado ma yeelahay xasadkii wuxuu gaarsiiyay inuu ilaahay lacnado lacnadaana ay la socoto ilaa uu naarta geliso adduunyo aakhira waa khasaare nabiyullaahi aadam alayhi wa ala nabiyina salatu wassalam markuu jannada ka saarahayo imtixaanayo ibtilaynayo uu jannada in laga saaro sababta u noqday waa xasad daraadii markuu ilaahay hortii ka dhaaranayo leeyahay caruurtiisaan baabi'in doona waxba ka reebi maayo waa xasad dartii yaani wuxuu ka xastayaa inay iyaguna badbaadaan isaguna uu naar galo maya waa inay igula daataan inma yad'u hizbahu liyakunu min ashaabi as-sa'ir godka in lagula daato waay wax badbaadaba aan la helin oo anigu haddaan galahayo maxaa looga badbaadi waay waa ka markii nabi aadam alayhi wa ala nabiyina salatu wassalam intuu tarmay caruurta dhalay labadiisii wiil buu hadana isku diray wuxuu ka soo galay hadana cunsurkii xasadku ka soo galay qurbaan bay geysteen mid baa qurbaankiisii la aqbalay kii kalena qurbaankiisii waa la soo diiday seeba aniga lagaaga aqbalay annakaygi loo soo diiday waa ku dilaya la aqtulannak war maxay ugu dilaysaa inma yataqabbalu Allahu min almuttaqiin war aqbalka ilaahay baa iska leh sifuna wax ku aqbala dad khaasana wax waa ka aqbala maxay ugu dilo sawt maxay tahay la aqtulannak adeer waa ku khaarijinaya seeba adigana taadi lagu aqbalay anna taydi lagu soo diiday ma soconayso walaalkii buu ka takhalusay walaalkii isku hooyii isku aabaayeen خلاص dhagtu dhiiga u daray sawt maxay tahay waa xasad nabiyullaahi yacquub alayhi wa ala nabiyina salatu wassalam wiilashii u dhalay inay intay tashadaan walaalkood yuusuf alayhi salaam ay ceel ku ridaan sababta keenta maxay tahay xasad baa keenay seebo aabba nooga jeclaaday wiilkani aabbu naga xigsaday sidaas daraadeed waa inaan wajiga aabba dhaafino si aabba inaga inoogu wajigiisu inoogu banaanaado wiilkan yarkay uu inaga jeclaado waa inaan khaarijino waay war aan dillo war ma dili mayne
dilkiisa inaga daaya aan ceel isaga ridno isdhaafino waa walaalkood xasad waa imtixaan ninbuu xaaskiisii ku diray laba isdhalay buu isku diray labadoo dhashay buu isku diray waxba ma hambaynin daawadiisu maxay tahay marka ahibba linnaasi ma tuhibbu li nafsika takun musliman la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi midkiin mu'min noqon maayo iimaankiisuna ma dhamaystirna ilaa uu walaalkii la jeclaado wuxuu naftiisa la jecel yahay wax badan baa daawoobi lahaa haddii ilaahay uu ina siin lahaa cunsurka isaga mashaakil fara badan baa daawoobi lahaa oo xal loo heli lahaa waxaa ka dhalanaya marka qalbigaagu uu mabda'a qaato dadka la jeclo waxaad naftaada la jeceshahay qodob kaleeto oo ka dhashaa jira maxaa ka dhasha waxaa ka dhasha in aad dadka ula timaado waxaad jeceshahay in adiga lagula yimaado taasina waa mid ku timid xadiidka fi sahih muslim oo nabigu sallallahu alayhi wasallam markuu ka warramay fitan iimaan doona aakhiru zamaanka oo midba midda ka dambaysa ay ka culus tahay xal nabigu wuxuu ka dhigay salawaatu rabbi sallallahu alayhi makhraj min alfitan faman ahabba an yuzahzaha 'ani an-nari wa yudkhala al-jannah falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir waliyati ila an-nasi ma yuhibbu an yu'ta ilayhi وفي الصدق روحي الربا markay fitan ku dhacaan oo imtixaanaad ku dhacaan inuu naarna ka badbaado jannana galo laba qodob hal yimaado qodobka koobaad geeridu ha u timaado isagoo ilaahay iyo rasuulkiisa rumaysan mabda asaasiga isagoo ku dhagan geeridu ha u timaado qodobka labaadna wax weeyaan dadka ha ula yimaado wuxuu jecel yahay in isaga loola yimaado si kale hadaan u dhahno adiga iyo dadka kale hal miisaan awada saar dadka adigoo kale ka soo qaad dadkii markaad adigoo kale ka soo qaado dareen baad leedahay wixii aad og tahay inaad dhibsanayso dadka la qaabili maysid aafadu xagee ka timaadaa dhibku inta badan wuxuu ka yimaadaa aadamuhu laba wuxuu haystaa miisaanan isagaa wax ku beegta midna dadku wax ugu beegaa kan aad dadka wax ugu beegtahay marka waa mid nusqaansan kan aad adigu ku beegatana waa mid buuxa waylu lilmudaffifiin way marka waylu lilmudaffifiin alladheena idha iktalu ala an-nas yastawfun wa idha kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthuna liyawmin 'azim markay dadka u beegayaanna markay beegayaan oo dadka xaqooda siinayaanna way nusqaamiyaan markay xaqooda oofsanayaan oo iyagu ay qaadanayaan oo beeganayaanna si dhammaystiran bay u qaataan qoladaasi waa qolada ilaahay tabaaraka wa tacaala aakhir oo cadaab ugu talagalay waay marka khalqigani waa adoo kale adeer sida aad jeceshahay inay kuula dhaqmaan ula dhaqan adigoo kale ka soo qaad dadka qodob ka sii fiican waay qodobka waxa ka sii fiican oo ka sii sita qodobka la yiraahdo al-ithar naftaadiiba lamaadan simine taada iyo toodaad hormarisayba iyagaabaad u doortayba taa waa darajo sare waa tii saxaabada nabiga ilaahay ku amaanay tabaaraka wa tacaala wa yu'thiruna ala anfusihim walaw kana bihim khasaasa waad gaajaysan tahay walaalkaana waa gaajaysan yahay baahidaadii intaad dhinac u dhigato dib dhigato baahidii walaalka daboolaysaa waad oomanta isaguna waa ooman yahay isaga biyaha siinaysaa adna waad ooman tahay taa marka waa darajo sare way ilaan adoomadii baa kala fiican oo kala sareeyay taasi rag baa lagu amaanay saxaabadii nabiga lagu amaanay salawaatu rabbi wa salaam alayhi waan marka martaba aad u sareysa way xadiidka marka asaasku waxa weeyaan cadaaladu ahibba lin-nasi ma tuhibbu li nafsika takun musliman waxaad naftaada la jeceshahay dadka la jecelo
Soomaali maanta way u baahan tahay daawadaas laana waxa isku leynahay isku kharibaya ee dalkooda ay u baabi'iyeen ee qoorta isugu jiraan ee u kala bixi lahaayeen u kala bixi laayihiin oo cadawgooda uga faa'iideystay wax kala ma aha waa un xasad waxbayna isu ogoleen laakiin hadii ruuxba ruuxa kala walaalkii uu naftiisa kala ka soo qaadi lahaa waxyaalo badan baa dhamaan lahaa si tilqaay isaga dhamaan lahaa qodobka afraad qodobka shanaad ee ugu dambeeya xadiidka nabigeena salawaatu rabbi wa salaamu alayhi wuxuu rasuulku leeyahay sallallahu alayhi wasallam wala tukthir ad-dhahik fa inna kathrata ad-dhahik tumitu al-qalb qosolka ha badinin qahqahda ha badinin maxaa yeelay qosolka faraha badani qalbigu dilaa waxa kala duwan ibtisaamada iyo qosolku waa kala duwan ibtisaamadu waa muusoodka waa dhoola cadaynta midaasi ajir baa laga helaa waqta nabiga yiri salawaatu rabbi wa salaamu alayhi tabassumuka fi wajhi aqiika sadaqa walaalka markaad iska hortimaadaan inaad muusooto dhoola cadayso oodan qabiid ahayn waa sadaqo ajir baa laga helaa tawa muusoodka waana tii nabigeena u badnaa salawaatu rabbi wa salaamu alayhi midna waa qosolka ka hada waa kan noocaas oo kala nabigu xulay sallallahu alayhi wasallam habadsanin طبعا marka qaar kood ruux waa ka dhacaya laakiin maxaa la diidan yahay habadsanin dib uu leeyahay ruux markuu qosolka badsado qalbigiisa dhinta qalbiga maxaa ka dhinta dareenkii baa ka dhinta cabsidii baa ka dhimata walbahaarkii iyo murugtii aakhira ka dhimata laan qalbiga markii aakhiro iyo geeri iyo macaanidaasi ka buuxdo qalbigu inuu iska qoslo ruux iska kahkaaleeyo uma badna waata nabigeenu leeyahay salawaatu rabbi wa salaamu alayhi law ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaytum kathira haddaad ogaan lahaydeen waxaan ogahay in yarbaad qosli lahaydeen in badanna waa ooyi lahaydeen laakiin warbaydaan haynin waxbaydaan ogay marka qosolka faraha badan qalbigu dilaa laana in badan waxa la doonayaa ruuxa muslimka ah inuu qalbigiisu cabsi iyo mustaqbalkiisa aakhiro iyo walbahaarkiisa iyo fikirkiisa inuu ku jiro qoladii naarta la geeyay oo ilaahay cadaabkiisa geeyay markuu ilaahay sheegay tabaaraka wa tacaala wuxuu yiri innahu kana fi ahlihi masrura markuu qaraabadiisa iyo ehelkiisa dhex joogay mid iska faraxsan oo wuxuu ahaan jiray iska qosqosla waxa la doonayaa in ay badato cabsidaada iyo murugtaada waxay keenaysaa in uu qosolkaagu yaraado qalbigaagu noolaado macaanida aakhira ku noolaato mustaqbalkiisa waxa soo socda qalbigaaga inay ka buuxsanto cabsida alle iyo murugta aakhiro inay qalbigaaga buuxiso ma diidayso muusoodka ma diidayso laakiin qosolka faraha badan baa la diidan yahay ee dadku in badan u badan yihiin shanta qodob oo nabigeenu salawaatu rabbi wa salaamu alayhi uu yiri yaa iga qaata oo ku amal fala ama cid ku amal fasha gaarsiiya Abu Hurayra yiri rasuulilaahi oo ana qaadanayo ku amal falay war inaguna soo madhina dhaana ma inaguna soo inaan farta u taagna ma misama Abu Hurayra kariyan ku dayna wanagu ma baahnin miya waa u baahna rasuulka ilaahi oo annagana waa qaadanay waana ku amal falayna dadkana waan gaarsiinayna taas la inaga raba sooma tawfiiqda Allah ina waafajiyo hada billahi tawfiiq sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam jazakumullahu khairan
سلام شيخنا، كيف حالك؟ الحمد لله، الله يعافيك. هذاك لا تشوف كلمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلهي سبحانه وتعالى وحنا ويديسنا بأسماء الحسنى والصفات العلى إنه شيخنا إلهي سبحانه وتعالى وبركيه في ميزان حسناته وإلهي أصاره. إخوتي في الله جدولك ولي ما ديارين لكن هذا عاوة وخير كنوب باللوضي يهبين دم يهبين كل حجابه. وأنا علماء بعض ما نلتشوكته دكتور آدم مكمية هاي كذلك دكتور أحمد دهراويس أصلا ونلسه جوجبه جمعة هدو دم يسسق خطبة تشيدية مركا خير فربضان باجر بينها أنا هدو الله هذا جدولك إن شاء الله تعالى بريمان ومارتي أنه قيبنا أن هدو الله سدايت هاي محاضرات كي عناوين توضا مركا إذن كنا مارتو حين الله خير الله ينسيه يتعمير كاس خير كام وذا قادني حقيقة وحويان ساعات كام الدقائق ذا هل ساعة تمر إنه وحي آد أوجا قيمة بدن تهي ساعات فرب بدن أنت هذا مساعدك عن سكون نمت أو هذا عن أنت دقي سنة إن خير كاس ساعات بدن بالغي أبا إنا واحد كلا وكاجا بحلا هذيك بكون بتقول هي دين هذه بكون بتقول ليس وادفائدة سنة كي الشيطان لديه جريبا بنان كايستاج هي واحد فرب بدن بعد هليسة هذا حقا علمي كقاضي حقا اعتكاف كي باكوس عن هي صلاة بعد جماعة كنت كنيسة وها اسكوررانك أو خير كافرها بدن نك الشيطان لديه جري ما أقوله مرة الله لمرك من زيادة سوق الشيء لبي يتوم بالله موضوع الحسوسين بكوس وريدي تلفونك ومرك ورا بدعي نبى ما أنتر بلايا سوق راعي الباب ذي سوفر الناس وشقيسان هيا مرك حلو بهاي هاي سيد شيخ وشيخ من حديث النبي ها قفكم مرك أسهل أنتهي شركة يوحي يحماتضو هذو إسكاقبتو حويان أستان بيوته أستان نفتي يا شيطان يوحي لو سهلي يلو قرحيي أنت صرنا أي كري ويانو كيستاجا أستان بيوته سيد النبي الله يوسف ناكتي أوها أدونكا وجريه كسو حرتي وقف دمرة ونبقرا قبي راح أدوم بكتيرتي مارت الصين وحوان اللي وحوها أدون وخدمية وحدده أجمشرين إلهي ما ينعت كله أجمشرين دواعي ورنا ما يسكتون هيت لك ما يكتر مركب معاذ الله يقول وماشى الوكالة بحايو عبد الدنيا عبد الشهوة يو مارت عبد لله ماشى الوكالة بحوي أنت صرنا نسوي صوت من مسكين كا يا وحولي مارت وحكولي معاذ الله يقول وأهرنا عاديات كنتي مواقفها الوكالة بحاي كمت وقفكم مركو وحي أسهل هذا ونفي الشيطان يدون رسوي مادان وحنا نقولها يا اتجاه مارت مجبورة ما كتير أبو روابان كوان كقصبنا أبو دي إن الرباقات وان كقصبنا أبا قرقي بعد لحظة يجت شوقي قاعد ميل فريستي حلقة عذر دار أنا وحبك كتير ناسو نفتي سو كوكان عنها أرنا كقصبنا وياه بالغياب بينوس كده نبي الله يوسف بل أنت أسباب إسقوط من ثيرية غريب بها وقفكم مركو ميل أن لقى قون وشوق حمات هذا والله بين أسهلات ومال لقى يقان هدو واحد بضم يلالنها يا أصلا وهذا إلى كعبز كتيرين أهلك يضدك يا قنت اللي يقان يبي أذا وكهر رئيسنا وذكرنا يسا وحبوا صور رهبا لكن مركو مال علا تاجو حالك يا با إن يرى إلى نرزين وحبوا صور رهبا ولذلك مركي وسران كي قلبات كلا تجي وحاويان ضدك نك سب حقيقة دي سو حاب الله صباح ضد بحاجة بأذا مركو كتير بأذا إلالين أتذكر بان إنتان سفر أنا أدنى سعودي كان كتجني بان وحنوك عني مال وضمضة رأي يوروب أيان أسعني أو نارتي أنو سفر عن كتير والقاسة ديارته وحأبنا فملفر بدن أو مارتي مملكة سعودي كان أبنا وأيقنا وحي أسعدن شو مارتي حاجة بحي والحس بيسعدن وضي مركز سعودي أنا أسقرب فدين مر الله عليه مركز وطن كرأي وطن كمذا هودي سأنقل بفهم الذي يردن وحيون قلان ماشي مسقوشي يعقم بالله لقلي درك يردن بيبدشين بدت كلا أو هذا قرن إني بكسبهم وحي ودد النابة وحيقول درها إسلام ويلو شن قبل مية مس أفر قبل ودتي هو وين قبلهنا أيدي قبله بان كلا قرن وينه وربوا يا الله علي يا سلا ما تروح الشيء كيد يقول وعريات دو سوونه وضيقي مرة وكعي مرة وفريسان ما هذا كرو رجي قبي الذي بوضوت
markaasuu marra istaagaa marra wuu fadhiisanayaa marra wuu istaagaa sheekh maxaa kugu dhacay baan ku yidhi wuxuu yidhi fiiri waddankii markaan joognay hataa jawiga waddanka markaan ku jiray buu mamlakada jawiga dowladdii u duceeyey ilaahay khayrays hawadeeda hataa markaan ku jiray kumayna dhiiranaynin markay ogaadeen in hawadii laga soo baxay iyo saas u galeen buu maxaad u malayn buu haddii joogi lahayn meesha ay degi lahayn yani waxaan ka wadaa insaanka in badan bii'adaa in badan ilaalinaysa marka masaajidka iyo environment-giisa markaad ku dhex jirto iyo dad ehlu khayr waxa loo leeyahay maartay saaxiibtinimo fiican samee as-suhba as-saaliha waxa loo leeyahay wax badan baad ka heli jaliisu suu iyo jaliisu saalih waa kii xadiidka nabigu noo mithaalin hayay marka ikhwati fillah aanu ku dadaalo khayraadkan muusimka weeyaan waasimtan oo kale ayaamaha noocan oo kale soo 3 bari waa laga wadaadada inay la joogaan 4 bari inay la joogaan aanu maartay saacaadkeena kala soo xamaalano muhaadaraadku waxay u badan yihiin bacda al-maghrib iyo cisha inta u dhaxaysa waxaan hal saac dhannayn way inta kale hadaan adduunyada ku mashquul halka saac ina nafti iyo shaydaan ka adkaano waa arrin aad iyo aad muhiim ah ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan weydiisanaynaa basmaha sifaat al-ula inuu xaqana tusanuguna irsaaq xaqa raacitaankiisa inuu shaydaan iyo naf iyo wixii wata iyo wixii dhibaato u wadan ilaahay subhanahu wa ta'ala naga leexiyo inna walidhalika wal qadru alayhi wa sallallahu ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.